بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي باكلي مهله waxaynu ku jirnaa bishii barakeysnayd ee Ramadaan bisha marka lagu jiro dadka walaalaha ah dadka muslimiinta ah dadka Soomaaliyeed oo dhan wala iscafiya bisha marka lagu jiro muslimiintu way iscafida يوسف شاعر نينا بوانا وهذا قاليا وانا صاحبنا نهاي بمركو عبر يو عفسك بمر وحيدي على العليا ذا حريدي عصب كينو قاليد سنقعرون كداقيه لقو موت على العيتيو طيحي ارشيدو كو عويه نوركي انكستون كو عاشقي على فيقه شيء أنا أقول علوشي عندي جيجو هو قبل عفس بينه كلامه وحكم ده هاي إن علت كاجماعة تجين علات ذاتي مقلين الكسر بحيشره ليش معناته وحول بوا قدر وحي قدر ليش معناته مسلمين تاو حنو شيء إن يسعفيا ومدة مسلمين تاو حنو شيء إن يسعفيا بشهر رمضان صدقة إن لبحية صدقة ولا بدية صدقة ولا بحية هدي لهي مال كوسية تدك عن وحبها يسن وحسي أدون كان ولا جت جاي مال بال يقول نوليه تدك كلنا كل عمرنا نجا عن هذا فرناطو هذا سكذا يصدقة وبحنية هتنا بحي أو مركز دي لهي كوسية ولا سيا تدك وحنو ما هدنا قيا dadkii dhibaatadii ku dhacday Hargeysa suuqii waaheen ummadii Soomaaliyeed ee u soo gurmatay lacagtoodii soo dirtay aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay aad baa u mahadsantihiin Allah idin karaameeyo sida noo karaameyseen raxmaanka idin karaameeyo aad baan ugu mahadnaqayaa Ra'iisul Wasaare Roble Mahdi رئيس الوزراء كحيانك محمد عبد الله فرماتشو يوم الصوماليات كسوق الجشة وحصاد سود يبتيبه وحنا لا أدب وما تنتي ومدة كقيب جشة أدون ككونال أردن كقيب قاعدتي لبعض هذا نوح ليه أدب وما تنتين إلى هاي هيدين كرامية سيدا نو كراميسين أبار راجع رجية جيلية دمر باله إن كستوي بوام بلان كلا جران بين إياه برور كلا بالأردن بريدة معان كوكو بابيان بوليو شعيل كوكو بيريان بيني آذن كالجو كلا برتا مركز باهنتي مركز هيبستا مركز هلو وذكره تذكر يجوز أنت كلا هلو وذكره هلو جرمدو إلهي يجنا وحلايه وهليسان واحد كفر حيا يسوق روح بدن با إن شاء الله بسم الله الكريم قولي يقولني ما ندري الله عيد كستوك قيب قادتي سوقا واهن أو سوق رمتي وأدونك كنول وحلا ومهتسنتين maanta suuqa gubtay bay doonayaan inay kuugu soo gabadaan marka shilinkooda ay iyagu aanay lahayn ee ay shalay xanibeen ugama baahnin mana doonayno sahar halkan fanaanad runtii qiimo badan baatay waan kugu soo dhaweynaa telefishinka caalamiga horyaal si aad la socoto masiibo runtii ummadda galgashay Soomaaliyeed oo dhan oo ka dhacday magaalada Hargeysa oo runtii aad looga naxay baa jirta masiibadaas runtii dad badan baa jira oo ka dhiibtay maadaama tahay fanaanada shacabka Soomaaliya ku weyn bal maxaad oran lahayd masiibadaasi si looga markaa gurmado halkee loo maro أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم هرتا هوريال تي في ودكم هتسنتين إنا ورئيسي ليا لتان دات أمدنا وحنا مسلم كهربان كريم مركل لبعض dadkii ay masiibadu ku dhacday waan ka tacsiyadeynaa dhibaatada maxay haydeen ku timi wixii ay intaas oo sano ku soo tabcayeen habeen kaliya shufiri
waxaan soo maray marxalado badan hargeyso dhan baa la baabi'iyey laakiin waxay ahayd wax waqti dheer qaatay bay ahayd duminta maxay hargeysa la dumiyay laakiin tani waxay naxdin iyo nabarba ku tahay saacadaha yar intaa leeg aynu intaasoo hantiyo ku weynay waxay ina tusaysaa inaynaan horta waxba ahayn oo waayo dee waxaan ilaahay bayna siiyey haddana qadarka ilaahay baa ku dhaceen dadkeenuna dad iimaan la weeyaanoo waa qadar ayaa kelmadii hadalkii ugu wanaagsanaaye laguna bilaabay ilaa maalintii dabku bilaabmay ilaa maanta waa qadarka ilaahay anigu fikirkayga ahaan haddii aan idhaahdo sidee baa looga baxayaa horta waxaa looga baxayaa in suuqyo badan la sameeyo oon dadku meel keliya ku ururin ta labaadna in suuqan wadooyin buu lahaa dee anagu markii aanu naqaanay idinku waa yartihiine oo waxaa malaa ku dhex korteen suuqaasoo kaariyoonuhu aanu dhex marayna dhowr waduu lahaa wadooyin maxay haydayeen wanaagsan oo waafiya oo waaweyn buu lahaa in wadooyinkiisii lagu soo celiyo suuqina maadaama uu maanta baaba'ay uu eber taagan yahay in dib u dhis lagu sameeyo gobol wal oo maxay hayday Soomaalilandina dhibaatada maanta ka dhacday wuu arkayaa maxay hayday Hargeysa inuu ka faa'iideysto isxilqaamaan dadku hadaan isxilqaamin idina waxba uma qaban karto dadku hadaan istirin idina waxba uma sameyn karto in goboladu ay iyagu isku tashadaan oo dawladda xukuumadda la shaqeeyaan oo maayarada la shaqeeyaan oo barasaabyada la shaqeeyaan oo ay askarta iyo dabdamiska iyo cid walba la shaqeeyaan oo wadooyinka ay sameystaan arsaaqada ilaahay nin waliba ilaahay intuu u qoray uu helaya yaana u qaad dadkii waxay kaga dhigtoon hadda laamida u soo dhawaato arsaaqadii wada soo dhawaatay ilaahay way iloobeen marka in laga fakaro oo si fiican inta looga fakaro suuq kaliya lagu koobnaan suuqiyo waaweyn la sameeyo saaray dabcan xilligan waxa jira iyadoo dabcan day rabadaan abaara badan baa iyaguna jawaab baahan iyagu qudhigooda dadka khasaaraha soo gaadhay marka laga yimaado dad guddiga la magacaabay oo dhaqaalaha ururin doona iyaga qudhigooda sidaad oran lahayd lacagtii iyo qarashaadkii ummadda soo gaadhay loo maamulo horta qof waliba wuxuu samaystay meel wax lagu shubay marka waxaynu leenahay bank dhexe baynu leenahay nagu leenahay haddaynu Soomaaliland ma wixii bayc mushtariga waaweyn bixinayaan sida dahabshiil iyo telesom iyo wall remedy ay bixinayaan oo iyagu ay ogyihiin halkay ka soo saarayaan iyo halkay ku shubayaan laakiin dad badan oo Somalilandara kuwa aan Somaliland ahayn Soomaaliya ayaa doonaya inay caawiyaan dadka waxa jira number saada ama idahaba oo account-ka dawladda toos ugu dhacaya haddii kaa la sameeyo la yiraahdo qofkii ummadda wax tarayo halka wax ku soo shub waxay ka badbaadaysaa inuu nin waliba samaysto account isaga u gooniya uu samaysto ay ka badbaadaysaa marka aan waxaan ku talin lahaa wixii shicibka ah ana account-ka maxay haydayeen banka dhexe dawladda ku shubaan oo number-raha loo sameeyo TV-yada lagu soo qoro maantaba telefishinada iyo wariyeyaasha maxay haydayeen heerkay gaarsiiyeen dabkeena nacamtii kana way gaarsiin karaan oo qof waliba uu soo shubi karaa anigu de fikirkayga taas ma oran lahaa saaray sidoo kale fanaanad baa tahay afka Soomaaliga ku heesta qoraal kooban oo aad mar dhaweytay Facebook-aaga soo dhigtay oo ah ayaan xamar anagu wax nooga yimaada ma doonanina celin badan baa ka dhalatay oo social media maxaad uga jeeday marka hore qoraalka horta laba mid baa jirta ma dadka shicibka ah mise xukuumadda shicibka Ethiopia way noo soo gurmadeen gaar ahaan kililka shanaad aad bay u mahadsan yihiin wafdi bay noo soo direen dawladdu Djibouti wafdi bay noo soo dirtay Twitter-kiisa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo Aabib waxay ku soo qoreen nacamtii sida ay uga xun yihiin dhibaatada ka dhacday shacabka Garowe waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inaan caawino dadkii dhibaatadu ka gaadhay waa shicibkan ka hadlay waxaan shicibka Soomaaliya laftigood saas yiraahdeen waxna waa shicib oo ummadii waxna waa ninkii shalay adigoo u baahan oo ay tahay wax
ana iyo ku siin adduunyada kale ku soo siisay waxa la ninka midida kugu taaga iyo kugu lalijiye ma xanuun badan ka kugu lalijiye xanuun badan intay goosteen oo ay yiraahdeen maxay haydayeen deeqda annagana soo marto waa inay ogolaadaan madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka diiday markii hore ay yiraahdeen baahida maanta jirta shalay abaar ba jirtay miyad wax hadal ka maqashay waa maya maanta suuqa gubtay bay doonayeen inay kugu soo gabadaan